markii uu istaagay wariyahan geesiga ah ee Muslimka ah ee Mareykanka u dhashay. Hadalladiisa geesinimada leh waxay gilgileen guud ahaan aqalka cad ee Mareykanka. Sidoo kale Joe Biden afkiisa ayaa juuqda gabay, hadalna waa uu ka soo bixi waayay. Wariyahan hadalladiisu ma ahayn su'aalo caadi ah ee su'aalo aan gambasho lahayn ayuu si foolka fool ah u weydiiyey Joe Biden. Waxa uuna indhaha u saaray xaqiiqada qaraar ee ay iska indhatirayaan guud ahaan reer galbeed. Haddii aad Muslim tahay, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto, siina share garayso si uu gaaro dhammaan dadka Muslimiinta ay uga falceliyaan. Wuxuu ka horjeediyey hadallo uusan qofna horey ugu dhiiran ninka ugu awoodda badan dunida. Hadalladiisa ayaana sida seefti oo kale ugu dhacay qalbiga Joe Biden. Inta ilmaha reer Falastiin iyo baroorta hooyooyinkooda ayuuna markii hore uga hadlay. Hadalkiisa oo qaylo iyo xanaaq ku dhisnaa ayaana daawo u noqon kara qalbi kasta oo horey u jabay iyo qof walba oo horey loo dulmiyey. Hadalladiisa xorriyadda iyo cadaaladda ayuu ugu hiilinayay, sidoo kalena waxay ahayd fariin ku socota guud ahaan caalamka. Adigu daawada ma ku dhiiran kartaa qisadan inaad nala dhagaysato ilaa dhammaad? Muuqaalkan adigoo like saaraya, siina share garaynaya, page-kana follow dhaha. U diyaar garow ilbiriqsiyadan qalbigaagu uu gilgili doono, indhahaaguna ay ilimay doonaan. Qisadani waxay ku bilaabmaysaa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu istaagay mimbarka aqalka cad si uu u jeediyo khudbad asaga u gaar ahayd oo uu uga hadlayo burburkii iyo dhibaatooyinkii ay geysatay duufaantii Milton, taasoo asbuucii lasoo dhaafay ka geysatay guud ahaan dhulka Mareykanka. Burbur dhaqaale oo aad u baaxad weyn iyo dhimashada dad aad u fara badan, walow uu burburkaanu aad ugu badnaa gobolka loo yaqaano Florida. Joe Biden xilligaas waxa uu khudbadiisa ku sheegayay inuu taageeri doono qof walba oo ay dhibaato ka soo gaarto, sidoo kalena ay dib u soo celi doonaan bilicdii meelihii burburay. Joe Biden oo si kalsooni ah u hadlaya khudbadiisiina wata, hal mar waxaa istaagay wariye ka mid a dadkii halkaas fadhiyey, waxa uuna si ay qaylo ku jirta u qaadacay khudbadii madaxweynaha. Waa wariye dhalinyaro ah oo Muslim ah oo lagu magacaabo Aadam. Wariyahan ugu horreyn waxa uu nafsadiisa ku qeexay inuu yahay Amerikaan Muslim ah oo ka dhashay qoys Muslimiin ah. Wariyahan ayaana si cara ah oo indha adayg ah u hadlayay, waxa uuna yidhi, magacaygu waa Aadam, aad ayaana kuugu caraysanahay mudane Biden. Kadis iyo layaab ayuu wariyahan hadalkiisu ku noqday dhammaan dadka halkaas fadhiyay. Biden nafsadiisa waa uu yaabay, asagoo wareersan ayuuna su'aashan weydiiyey wariyaha, maxaad iigu xanaaqsan tahay? Wariyahanna hadalkiisa aan gambashada lahayn ayuu sii watay. Waxa uu yidhi, aniga waxa aan xoojinayaa hadalka gabadha yar ee muslimadda ah ee Maryama ee ka soo jeeda gobolka Florida, taasoo kugu dhahday hadal ay dadka dhan kaala cabsadeen. Hadalkeeda oo dhan waa sax, adiga ayaana sabab u ah waxa ka dhacaya Ameerika. Waxaad ku dhiiratay oo ka hor imaatay awoodda Ilaahay. Waxaadna dhahday Ameerika waa dawlad awood badan oo aysan cidna awoodin, laakiin hadalladaadaas dartood ayuu noogu yimid ciqaabkan Ilaahay. Duufaanta Milton ayaana noqotay natiijada ka dhalatay hadalkaaga, mana kuu suurtagelayso inaad ismoogaysiiso xaqiiqada. Madaxweyne Biden ayaana iska taagnaa asagoo aan garanayn wax uu ku hadlo. Hadalka wariye Aadam ayaana geliyey xaalad wareer iyo qalqal ah, waana uu heli waayey jawaab uu isaga difaaco weerarka uga yimid geesiga. Aadam ayaana hadalkiisii geesinimada lahaa iska sii watay. Waxa uu yidhi, ma ahan kaliya duufaanta Milton, sidoo kale waxaad ku fashilantay garab istaagga shacabka reer Falastiin, kuwaasoo muddo dheer la dhibtoonaya cadaabta iyo dhibaataynta gumaysiga. Waad u bannaysay, sidoo kalena waxaad u ogolaatay ku xadgudubka Masjidul Aqsa, uulil qiblatayn wa thaalithi xaramayn ash-shariifayn. Garab istaag iyo taageero joogto ah ayaadna Israa'iil u waddaa, iyagoo burburinaya hanka shacabka reer Falastiin si ay xuquuqdooda u qaataan, mashaariicdoodana uga fushadaan. Aadam hadalladiisii geesinimada lahaa asagoo wata waxa uu yidhi, waxaad isbitaalka u jiifatay, waa taxadigii aad Ilaahay ka hor imaatay. Xilligaasna kumanaan qof ayaa diinta Islaamka ku soo biiray. Hadal walba oo ay daalimiintu ku dhawaaqayaan iyo dulmi kasta oo ku dhacaya reer Falastiin waxa uu daliil u yahay diinkan ku dhisan samirka iyo dulqaadka. Ugu yaraan 5 qof asxaabtaada ka mid ah u share garay muuqaalkan.